madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaaniyo iyo waftigii uu hogaaminayay oo maalmihii dambe ku sugnaa magaalada Berbera ayaa maanta galigii dambe booqday xeebta Batalaale halkaas oo ay kula kulmeen maamulka iyo ardayda wax ka barata jaamacadda culumta badda ee magaalada Berbera kuwaas oo tababar ku qaadanayay doon cusub oo ay dhawaan ugu deeqday shirkadda Somaliland Five Fishing madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaaniyo kadib dabaal iyo waqti fiican oo ula qaatay dhalinyaradaasi isaguna goobtaasi dhalinyarada kula hadlay una soo jeediyay hadallo dhiirigelin ah waxa uu ku bogaadiyay inay si fiican xogagal ugu noqdaan casharada ay baranayaan si loo helo arday aqoon u leh kheyraadka badahooda aad baan ugu faraxsanahay insha Allah taala waxaan rajaynayaa si waxa u bartaan iyagana ay dhiirigelin u noqoto ay dad badan oo dhalinyaro badda wax ka yaqaanaan soo kale insha Allah sidoo kale waxa iyaguna si weyn u soo dhaweeyay socdaalkan uu madaxweynuhu ku yimid xeebta Batalaale kuna dhiirigelinaya ardayda wax ka barata jaamacadda culumta badda ee magaalada Berbera wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Cali Maxamed Cilmi iyo qaar ka mid ah dhalinyarada wax ka barata jaamacadda culumta badda ee magaalada Berbera ayaa sheegay in socdaalkani uu ardayda ku dhiirigelinayo sida ay ugu dadaali lahaayeen ka faa'iideysiga kheyraadka badaha waa xeebtii Batalaale ee Berbera waxaan halkan haddaan nahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ardayda ku jirta jaamacadda badda oo uu dhiirigelin madaxweynuhu aanu ka codsanay inuu maanta si uu dhiirigeliyo inay dabaasha bartaan inay maanta kula dabaashaan halkan madaxweynuhu naga ogolaaday isagoo waqtigiisu xiriiri yahay ardaydii oo maanta la dabaalanaysa waa fursad dahabiya oo ilaahayna siiyey hadday tahay bahda waxbarashada idinkana waa fursad dahabiya madaxweynuhu dhalinyaradiisii la dabaalanayo tusaya inuu dabaaliyo meel walba garab taagan yahay aad iyo aad baan u faraxsanahay haddaan nahay magaalada Berbera madaxdeedii ama gobolka Saaxilba waxaan halkaa ka arkaynaa dhiirigelinta wilaayada daayarta madaxweynuhu dhiirigelinayo oo waa aragto imka dhalinyaradii daayarta inuu dabaasha kaga xalibsan yahay soo wax qalab aan soo aan xidhnayn iyaguna qalab xidhan aad iyo aad bay arinkaasu dhiirigelin weyn ardayda ugu tahay waa arrin lagu farxo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii maanta dareenkayga tan salaada cabir waxaan cabiri kareenin way aad iyo aad ayuu ugu bayntahay maanta kalena waxa la yiraahdaa waa maalmaha taariikhda lagu qoro taariikhdana is qortay lama qoro maanta kalena waxaan u baahanahay in page weyn ay taariikhda ka gasho waftigan qiimaha leh ee ugu soo booqday maanta xaruntii gobolka Saaxil ka arday ahaan dareenkayga maanta iyo shucuurteedu aad bay u kacsan tahay booqashada madaxweynaha Soomaaliland oo salaan halkan afka ardayda ku hadlaya salaan baan halkan ugu dirayaa waxa kale sidoo kale aan salaamay wasiirada la socda waayo waa markii ugu horeysay amaas arday ahaan Khalid Xasan Nuur telefishinka madaxa banaan ee Bulsha TV Berbera.